waxaa sheekada Manafai lagu soo bandhigay dalka Yurub daabacadeedii afraad sidoo kalena waxaa la rajaynayaa maalmaha soo socda in lagu soo bandhigo magaalada Muqdisho baladaba aniga iyo daawadayaashii dhageystayaasha si aan wax badan uga ogaano qiimaha ay leedahay sheekadan farshaxnimadeeda faneed ayaan rabnaa bal su'aalo guud mar inaan ka weydiiyo su'aasha ugu horeysay aan ka weydiinayo sheekada Manafai oo uu buuggeeda yahay ka idin muuqda waa maxay qisada Manafai qeexid iyo warbixin kooban naga sii goorma ayaa la qoray yaa qoray muxuu ka dhigan yahay magaca Manafai بسم الله الرحمن الرحيم marka ugu horeysa waan ku salaamayaa Ustaad Cabdullaahi Gacanka teamka kale ee la shaqeynaya barnaamijka duubayana waan salaamayaa dhageystayaasha iyo daawadayaashana waan wada salaamayaa markii xiga wasaad u tilmaantay qisadan caanka baxday 40 jirsatay ee Manafai wadamo Yurub ahna waa lagu soo bandhigay وانا laga yaabaa inta barnaamijkan duubistiisa iyo deentiisa lagu dhex jiro in Muqdishona lagu soo bandhigo sida la rajaynayo qofka daawanaya ama dhageysanaya iyadoo la soo bandhigayba inuu barnaamijku baxaaba dhici karta wasaad u tilmaantay qisadan Manafai waa buuga aad arkaysaan Manafai waxaa la qoray horta waa sheeko la qoray 1979 way 40 jirsatay marka waxa waaye waxay gaartay meeshii qofku xoggiis ku bixisay markii hore waxay ku soo bixi jirtay markii ugu horeysay waxay ku soo baxday wargeyskii xidigta October iyadoo maalinle ay ku soo bixi jirtay kadib waxay noqotay in la daabaco iyadoo buuga markii ugu horeysay Muqdisho waxa lagu daabacay daabacadii 1981 dabadeed waxa lagu daabacay muxuu ahaay Sweden ama Stockholm 1993 mar saddexaad waxa lagu daabacay wadanka Ingiriiska ama UK 1997 midkan marka waa daabacadii afraad waxaana lagu daabacay Ingiriiska isla Ingiriiska lagu daabacay marka Ingiriiska wuxuu nasiib u yeeshay in laba jeer lagu daabaco qisadan waxa qoray Dr. Maxamed Daahir Afrax waa qoraal la wada yaqaan isagoo iminka inaan ka sheekeyno iyo inaan wax iska barno uma baahna muddo dheer buu ka soo shaqeynayay dhanka fanka iyo suugaanta gaar ahaan dhanka suugaanta iyo af Soomaaliga guud ahaantiis gaar ahaan dhanka suugaanta cilmi ahaan shahaadada PhD ayuu wuxuu ku haystaaba suugaanta Soomaalida sheekadani waa sheeko faneed markii sheekooyinka loo qaybiyo sheeko faneed iyo sheeko hideed waa kuwii soo jiray sidii dhagdheer iyo diin iyo dawaco iyo waxyaabaha la midka iyadoo waa sheeko faneed uu qof curiyay oo la yaqaan qofkii curiyay waa sheekooyinka casriga ah ee ku soo biiray suugaanta Soomaalida xilligan casriga waxay soo galaysaa nooca sheekada dheer ee loo yaqaan qisada oo sheeko faneed markii loo qaybiyo laba qaybood oo waaweyn sheeko gaaban iyo sheeko dheer si magaca sheekadu uu laba jeer u soo noqonin ayaa Soomaaliga bixinta loo isticmaalay wuxuu yahay qiso marka sheeko dheer u taagtay ama novel ku xaliyo waa novel sida Englishka lagu yiraahdo ama Carabigana riwaayad lagu yiraahdo kaleeto marka waa qisadaas weeye marka waa qisadaasi ama novelkaasi Manafai waxaa jilaya magaca meesha uu ka keenay waa Manafai buuga loogu magac daray waa gabadh dugsiga sare dhigata da'adeedu ayna 20 gaadhin qoyskoodii reerkoodii la joogta la jecel yahay imika gaashaan qaaday oo gashaanti noqotay la doonay loo hanweyn yahay laga wada dhursuga gabadh Banaadiriya xamar weyn ay ku dhalatay ku kortay ay joogtaa inta ay sheekada jilayso magacan Manafai wuxuu la mid yahay magacyada iyaga la isku lamaanay gabdhaha loo bixiyo waxaad arkaysaa midalan iyadoo la leeyahay Caashakiin Aamina Sahra Xawluul Maryama Muxubbo marka waxa ka muuqata jacayl iyo koolkoolin xadaafa loo qabo marka sheekadana saasi ku jirta yaani waalidkeed way jecel yihiin deriskeed way jecel yihiin saaxiibadeed way jecel yihiin bulshada ay ku dhaxnoosho dhanna way jecel yihiin dhinac kasta marka laga eego waa marka gabar loo hanweyn sheekadan dhacdooyinkeedu waxay ka dhacayaan magaalada Muqdisho 1979 markuu qofku akhriyo marka Muqdisho 79 sidee ahayd sidee loogu noolaa ayaa dariishada sidii loogu noolaa iyo habkii loo fikiri jiray qaybaha kala duwan bulshada waxa soo dhan ayuu taariikh ahaan looga qoro waa ku filan tahay
way culumta qaarkood sida taariikhda iyo anthropology-ga iyo sociology-ga iyo culumta la yiraahdo waxay u noqon kartaa tixraac fiican bay u noqon kartaa goobta ugu weyn ee ka dhacaysa waa magaalada Muqdisho yani Muqdisho weeyaan baa waxa ay ka dhacaysa sheekadu fagaaraha ay ka dhacayso gaar ahaan labada degme Xamarweyne iyo Boondheere labadaas ugu weyn iyo hodanna meelaha soo yargalaya iyo xagaas laakiin labada meelood ugu weyn waa Boondheere iyo waxa waa magaaladii xamartii hore waa Xamarweyne waa xamartii hore ayay ka dhaxdhacaysa shantii xaafadooda waaweynaa ee xamar ka koobnayd berigii hore ilaan Shibis iyo waxay ahaayeen Shangaani Xamarweyne iyo Boondheere xamar jajab santaas degmo ayay magaalada dhan baahayd sheekada qofka imika akhriya waxay dib ugu celinaysaa 40 sano ka hor magaalada Muqdisho sida ay ahayd noloshii bay ku muujinaysaa waxa ka mid ah tusaale ahaan dadku waxay raaci jireen taxi qof loo raaco marka qof kalba sida basaska imika loo raaco kale yaa taxi 4-5 qof wada qaadi jireen dhaqan hadda jira ma qof baa taxiga kareysta hal qof baa kareysta laakiin marka dad badan baa wada raaci jireen marka habkii taxiga qofka akhrinaya laga yaabo inuu la yaabo waxaad ku arkaysaa aqaladii xilliga magaalada caanka ku ahayd mitir kuubo iyo baraako iyo oo hadda markii la eego laga yaabo in naadir dhif dhowr xabo kaliya lagu arko waxaa ka mid ah muxuu ahay waxyaabihii marka agabkii jiray tusaale waxaad arkaysaa iyadoo leeyahay wuxuu xidhan yahay dacas goome baabuur ka samaysan marka dacas goome baabuur ka samaysan hadda waxa la yaabaa inaysan mana arag mana maqal waxaa ku jirta noloshii xilligaa iyo agabkii la adeegsanayay bay noo muujinaysaa waxaa ka mid ah mararka qaarkood iyadoo leeyahay saxan ereyga saxan buu adeegsanay sax imika saxan ma adeegsano markii loo saxan cusub bay u saartaa waa jiira digsi warka jiira digsigii waxa la adeegsadaa memory waxa ka horeeyay cajalada ka horeeyay saxanku ka sii horeeyo 7aadkii 6aadkii ayaa la isticmaali jiray marka qofku caadi imika uma fahmayoba marka la joogo ereyadii beriga la isticmaalayay ayaa ka muuqanaya sida ereyga saxan oo kaleeto waxaad arkaysaa isagoo mararka qaarkood ereyo aan imika la isticmaalin dhaqankii markaa jiray mesela hoteelo iyo caweys bay lahaayeen waxaad ku arkaysaa ereyadii meelaha lagu adeegsan jiray iyadoo la adeegsanayo bermeti boqorada qofka hadda joogo qofku hadda ma garan karo ma maqal maba yaqaan maba ahaba waxay qisadan ina tusaysaa bulsho oo ka dhex socdo isbedel waxa dhaqankii soo jireenkaana uu ku dhex jiraa dhaqan cusub oo nolosha casrigu la timidna ku dhex jiraa labadii dhaqan oo isdhex jeedaya labadii dhaqan oo isdhex jeedaya dhinacna ka wada nool dhinacna dagaal ka dhaxeeyo loolan iyo uu ka dhaxeeyo ayaa ku jira waxayna tusaysaa dhaqamadii iyo fikradihii bulshada markaa ka dhex jiray bulshadii markaa Muqdisho ku nooleed dhaqamadii iyo fikradihii ka dhex jiray dhaqamadaas iyo fikradahaasi gaar ahaan qisadu waxay soo muujinaysaa kuwoodii markaa dhaliisha dib ku hayay oo bulshada in lagu baraarujiyo ay ahayd waxaad arkaysaa marka bulsho dhaqamo isdiidan oo kala duwan fikrado la rafanaya dhaqamadaas ay ku dhex jiraan oo mararka qaarkood ay ku qabanayso waxan ma meelaha laga toosiyo marka qisada Maanafay waa qisadaas 40 jirsatay macallin macna waa qiso oo waxbarasho runtii aad iyo aad waayahay Mustafa anigoo mar labaad kaaga mahad celinaya inaad iga ogolaato inaan kugu martiqaado barnaamijkan xog iyo xusuus si aan bal bulshada ula wadaagno qiimaha ay leedahay sheekada Maanafay iyo bal hab nuxurkeeda inay wax ka ogaadaan bal waxaad faalla kooban naga siisaa hab qoraalka faneed ee qisada Maanafay hadda sheeko waan iska dhaafaynaa maadaama qiso iyo sheeko aan hadda kala fahnay sheekaduna ay tahay sheekada gaaban u adeegsan doono qisaduna ay tahay sheekada dheer ay macnaha nooga taagan tahay bal hab qoraalka faneed ee qisada Maanafay qisadan Maanafay hab qoraalkeeda faneed waxa ka muuqata farshaxnimo faneed oo xoog leh farshaxnimada faneed waxa laga yaabaa dadka qaar markay akhrinayaan inay iyada ku indha daraan nuxurka iyo faa'iidada kale tiyo fariinta ay gudbinayso ama ay tan ku mashquulan ku indha daraan marka farshaxnimo xoog leh xambaarsan tahay nuxur iyo fariin kaleeto oo barbaarin iyo wacyigelin ahna way xambaarsan tahay dhanka farshaxnimada faneed marka la eego waxaad ku arkaysaa qisadan markaad akhriyayso
qoraagu si la yaab loo farshaxanimo xoog leh ay ku dheehantaho xirfadaysan ayuu wuxuu u sifaynayaa waxyaabaha kala duwan ee akhristuhu ay tahay inuu ogaado suu sheekada u fahmo tusaale ahaan wuxuu kugu sifaynayaa goobta arrintu ay ka dhacayso hadday qol tahay hadday guri tahay haddii waddo la marayo la lugaynayo ay tahay haddii xaafad ay tahay wuxuu si farshaxanimo leh kugu sifaynayaa qofka dhacdadaa samaynaya qofkaas labiskiisa socodkiisa shakhsiyadiisu siday tahay iyo dareenka markaa uu socdo ila qofka markuu socdo waxba intaas waa inta ku muuqata moogta wuxuu ka tegayaa intii muuqatay wuxuu dhaadhacayaa qofka maskaxdiisa maxaa ka guuxaya xilligaasi wuu fikirayaa qofka marka waxbaa ka guuxaya waxaan ma samaysaa ma iska daysaa waxaa samee maya ha samaynin meeshaas tag hebel maxaad ku tidhahdaa waxaa ku dhe haduusa marka qofkii maskaxdiisa fikirkeediiba ku dhex geynaya markaas qofka maskaxdiisii aad dhex gelaysaa waxaa ka mid ah xaaladii markaa lagu jiray hadday xilli mugdi ahayd haddii meel la faraxsan yahay ahayd haddii meel la isku xanaaqsan yahay ahayd yani iyadana xaaladii markaa lagu jiray ayaad ku arkaysaa waa farshaxanimo wuxuu kuu abuurayaa qoraagu humaag waa waxaan afsuugaaneedka lagu dhahdo humaag markaasa waxay noqonaysaa inkastood wax akhriyayso wuxuu ka adeejinayaa dareenadaadii kala duwanaa araggii inaad wixii arkaysaa ismoodaysaa ku hor joogo oo kaleeto oo habkaas markaas ay dhacayaan inaad ood codkii maqlayso oo aad muuqaalkii arkayso oo haddii muxuu ahaaye ay dhaxanayd dhaxantii aad dareemayso wariba meeshu meel murugo leh hadday aad la falgelaysid oo adiga lafkaad murugada saameyn kugu yeelanayso aad murugoonayso haddii meesha wax xun ka dhacayeen aad ka xanaaqaysid oo inaad ka dhiidhido ay kugu soo dhacayso marka qaybtaas humaaga iyo sifayntaasi si xoog leh anu markaan qisada akhriyo waxaan is odhan lahaa malaha isagaaba number 1 qisadu dhanka farshaxanimada qoraalka iyo qoraalkeeda faneed waxaa qayb ka ah wuxuu adeegsaday weedho gaagaaban aad u gaagaaban taas waxay sahlaysaa marka akhristuhu kuma wareerayo hadal dheer inuuna ku dhibtoon marka qaarkood waxaa laga weedho inay 3 4 5 erey keliya ama ka yarba ay ka kooban tahay marka weedhahaas gaagaaban waa qayb weyn waxaa kaloo farshaxanimada qoraalkeeda qayb weyn ka ah wuxuu si xirfadaysan u adeegsanayaa ereyada xulashada ereyada si xirfadaysan oo ay ka muuqato si hibo xoog leh ayuu u adeegsanayaa mararka qaarkood waxaad ku arkaysaa ereyo dhaqankii miyiga ka yimid ee reer guuraaga inuu ku xidhayo noloshii magaalada casriga waxaad arkaysaa waxaa ku jirta afdhuublaynta fatuuradda fatuuradii ku usneed weli way sii afdhuublaynaysaa marka afdhuublaynta ma waalatay xagee ku socotaa marka afdhuublayntu waa erey loo isticmaalo mugta orodka geela ayaa loo isticmaala marka fatuuraduna waa dhaqan magaalo afdhuublayntuna waa erey laga wuu isqabadsiiyey marka socodkii ereyadii marka si xirfad leh ayuu isugu qofkii ereyga tusaale ahaan yaqaanay afdhuublayntu socodkii gaadhigu marka uu ku socday wuu fahmayaa dhadhan dheeraada ayay u yeelanaysaa marka waa xirfad dhanka xulashada ereyada iyo adeegsigooda iyaduna xirfadaasi aad iyo aad ayay uga muuqataa dhanka kale qoraalka waxaa ka muuqanaya ereyada xulashadooda waxaa qayb weyn ka ah qofka iyo mowqifka uu markaa taagan yahay ereyga ku habboon tusaale ahaan maanafay oo reer xamarweyne ah lahjadii banaadirgay ku hadlaysaa jaamac dhegay oo isagoo nin weyn miyi ka yimidna afkii dad afkaas ereyadiisa waad ka dhadhaminaysaa adeegooda iyo ereyadu adeegsanayo ka kanaantooda iyo kana faadumo yare oo afkooya ka timidna marka xulasha waxaa kaloo la mid ah waa meeshuu qofku ku barbaaray mogta marka waad garan kartaa qofkan laga sheekaynayo iyo ereyadiisa uu adeegsaday way isleeyihiin iyo bay'adaas laga dhaqan ahaanba qofka da'diisa faadumo yare oo gabadh yar ah ereyadeedii ciyaalka da'deedu adeegsadeen bay adeegsanaysaa laakiin tusaale ahaan muxuu ahaa maanafay hooyadeed waxay adeegsanaysaa haweenka waaweyn reer xamarweyne afkay adeegsadaan jaamac dhegay tusaale ahaan wuxuu adeegsanayaa odayaasha waaweyn ereyadoodii iyo waxyaabaha la midka marka micnaha jiil waliba habdhaqankiisii waxyaabaha u gaarka ereyo ku habboon waxaa kaloo la mid ah heerka aqoonta qofkan yar
dadka qof tusaale ahaan markaad akhrinayso Axmed Jaamac arrimaha qaarkood markuu ka hadlayo waxay ka turjumayaan aqoontiisa cilmi waxbarashadii saameynta ay ku yeelatay waxbarashadii markaas waxa laga yaabaa mararka qaarkood dood baa dhacaysa oo isaga iyo waxa sheekaysanaya Leyle iyo Maanafayo ag joogtaa marka maxaa ka sheekeynaysiin bay leedahay way faham wix tarankay ka dhacaysa way fahmi weynaysaa marka waxa ku jirta Leylena aqoon ay leedahay oo wax caafimaad bay baratay saarana waa macallimad marka saasi tareenka uga dhacaysa ayada marka waxa ku jirta farshaxanimada faneed iyo habka qoraalka faneed ee adeegsanaysa sheekadu waxa weyn qofkani sida uu yahay aqoontiisa iyo da'diisa iyo meeshuu ku soo barbaaray iyo deegaanku dhex joogay iyo markaas hadii midalan waalid iyo caruur oo dhalay wada hadlayaan eriyo ku haboon bay ku wada hadlayaan laakiin markay laba gabdhood oo walaali sheekaysanayaan eriyo ku haboon ayay ku sheekaysanayaan oo laga yaabo mararka qaarkood in waalidka lagala yar gabado in hortiisa lagu adeegsado taasina way ka muuqataa dhinaca kaleeta muxuu qoraalkaasi sida xoog leh uga muuqanaya waxa weeyaan falkinta ama xabkada sheekada isku falkinta xabkada sheekada si fiican baa la isugu soo hay xabkada iyo falkinta sheekada dhacdooyinkeeda si xoog leh oo qurux badan waxay keenaysaa marka inaadan ka xiisa goynin aadan ka daalin aadan iloobin ku jir hadaad akhrisaa سادرت واحد كون موقنا يساتو صالحان إلا ملاها بقول يساتون كبوجي أهرية مربى دعدا كوب بلابنيسا مربى قف بالو برايا قف كان يشيء كذا محبار دحمريا مركزا أنت ضمبه أي أضو حيسة وقبا إسرها يا شيء كذا تلو حدنا مال عصوبة حدنا كسر دح واحد عصوبة كوب صوبة حيا حدنا شيء كذا واحد سكوحرم وهل نلول هل نلول مركز حب كذا يفلكنتها شيء كوينك دعدوينك كلا دون لسكوفلجي أيضا وميل وين وكلاته أو كجرته waxyaabaha iyaguna sheekadu quruxdeeda qoraalkeedu uu leeyahay waxa kamid ah tii aynu tilmaamaynayo qoraagu wuxuu ku dhex geynayaa qofkan maskaxdiisa iyo sidoo u fikiray marka dhexgeynta qofka ku dhex geynayo waa arrin weyn iyaduna oo dareenkiisi iyo ku cabiraya haday farxad ahayd haday murugo ahayd haday arinta uu sameyn lahaa muxuu damacsan yahay waxyaabaha dhan buu ku cabiraya marka dareenkaas aad la falgalayso waxa kale oo ku jirto oo sheekadu iyaduna ay ku leedahay magacyada loo bixiyay jilayaasha ama shakhsiyaadka qisadan ku jira way isku haboon yihiin macnaha waxaad moodaa in la isla helay iyo sheekada si ugu jirto way isku haboon yihiin jaamac dhegay iyo kaalinta uu sheekada ka matalayo way isku haboon yihiin Faadumo Yare iyo kaalinta ay kaga jirto way isku haboon yihiin baydan shabeel iyo sheekada kaalinta ay kaga jirto way isku haboon yihiin waxa la mid ah jaamac dhegay barbaarintiisii iyo naanaysta uu qaatay dhegay way isku haboon yihiin baydan barbaarinteedii iyo magaca ay wadato way isku haboon yihiin marka waxyaabaha markaad eegto xulashada shakhsiga iyo magaca la siiyay iyaduna waa qurux iyo farshaxanimo kaleeto oo dheeraada waxyaabaha kaleeto isla iyaduna sheekadu aad bay ugu amaanan tahay bulshada laga sheekaynayo dhaqankeeda iyo fikradaheeda qoraagu uu ku furfuraya markaas wuxuu kugu kala dhigdhigayaa qodobo qofkii sidii isagoo la nool uu noqonayo dhaqankii baad fahmaysaa soo maalinta joogo 79kii sidii 79kii noolaa ay aqli lahaa marka dhinaca marka la eego qisadu yani farshaxnimo xoog leh iyo qurux faneed oo xoog leh oo iyo qoraalkeeda ka muuqda waayahay waa runtii si wanaagsan baad noo deeqsiisay su'aalahaasi labada su'aaladood haddaan inaha ugu sii gudbo bal gudaha qisada aan u sii gudubno bal wax nooga taaba jirayaasha tir dhaxaadka oo ah qisada mid waliba doorkiisa jilayaal lowra ayaa ku jira sheekada ama qisadan jilayaasha markaad eegto marka sibuu midba sheekada ugu jiraa dhowr baynu tusaale uga soo qaadanaynaa ma wada muxuu soo koobno qisadan waxaa laf dhabarka ah Maanafay ayay ku socotaa sida magaceedaba uu magacii sheekadaba loo siiyay qaybta koowaad ay ku bilaabanayso bagga koowaad waxa weeyaan Maanafay buu ku bilaabmaya waa gartay wuxuuna ku dhamaanayaa Maanafay ayadoo ku bilaabanaya ayadoo ku dhamaanaya dhexdana meel ay ka maqan tahay ma jirto marka Maanafay waxa weeyaan waa gabadh
soo kortay dugsiga sare dhigata gashaantiya xilligii guurka gaadhay waa gabadh wanaagsan sida magaceedu oo niyad fiican dadku ay jecel yihiin waalidkeeda iyo bulshada intuu way jecel yihiin gabadhaasi waxay leedahay aqoon kooban oo dugsiga sare dhigata waayo aragnimo badan ma laha waayo aragnimo badan oo nolosha ama laha reerkoodii intoodaba kamay bixin waxa keenay ku dhex jirka qoyskii iyo da'da xataa mugtay waa arday dugsi sare dhigta mugtay waa aragnimo badan ma laha maanafay dhaliil bay leedahay waa ilnugeel ma dhiirana khajlaad bay leedahay marka kuwaas waxay ku keenayaan qisada markaad akhrido dhibaatooyin ku dhacaya waa dhibaatooyin dhaliishaas ilnugeylku ay keentay waxyaabo ahayd inay diido ma diidayso tusaale ahaan markaasaa waxaa ku dhalanaya dhibaato ayaa ku dhalanaya marka ilnugeylkaas yani qisada jilideedana qayb weyn buu kaga jira ilnugeyl hadday indha adkaan lahayd waxaa laga yaabaa kaalintaa inayna si fiican ayna u qaadateen gabadhaas maanafay la yidhaahdo mawjadihii nolosha ayaa qarqinaya mawjadahaas waxay ku dhowaanaysaa inay nolosheeda burburiyaan mar inay isdishayba ku siganaysaa ugu dambeynsa way ka badbaadaysaa waa ilaawidii boorsada uga badbaaday way ka badbaadaysaa dadka kaleete ee qisadan lafdhabarka ka ah waxaa ka mid a jaamac dhegey ninka odayga jaamac dhegey waa muwaadin caadiya miyiga kusoo barbaaray nolol dhib badan kusoo koray magaalada markii dambe yimid magaalada iskoris ahaa aqoon buuran aan helin bulshada aan barbaarin fiican aan ka helin oo bulshada barbaarin gacan qabasho ma helin waa iskoris nimadkiisas waxay keentay nolosha inuu meel fiican ka gaadho dadaalkii uu sameeyey noloshiisa miyiga uu ku soo koray dhibkeedu wuxuu u keenay dhaawaca dhegey naanaystu marka waxay ka turjumaysaa dhibaatadii raadkii ay noloshu kaga tegaysay shakhsiyadiisa barbaarideeda nafta hoosena dhaawacyadaasi way ku jiraan laakiin dushiisana way ka muuqataa dhegtaas loogu magac darayba weeyaan way ka muuqataa waa dhinaca markaad ka eegto marka haddana ninkaasi wuxuu madax ka noqday mashruuc weyn oo muhiima nolosha uu ku soo barbaaray iyo xaaladda uu ku soo koray iyo dhaawacyadaa soo gaadhay waxay natiijo dabiici ay dhalayaan siduu u dhaqmayo mashruuca si fiican uma maamulayo wuxuu adeegsanayaa wuu ku tagrifalayaa hantidii wuxuu adeegsanayaa burburinta bulshada qaybo ka mida halka uu haddana caruurtiisa iyo qoyskiisa inuu barbaariyo koriyo dad wanaagsan uu ka dhigo marka jaamac dhegey waa ninka odayga ah isna sheekada meel weyn ayuu kaga jiraa qayb weyn waxaa jirta islaan la yidhaha bayden shabeel waa qof weli qof weyn oo da weyn ma noqon laakiin waa kontameeye meelahaas jirta waa qof weyn oo kortay haween weyn weeyaan bayden shabeel waa qof muwaadin duruufo dhib badan kusoo kortay miyi ku dhalatay kusoo barbaartay abaaro ku dhaceen abaarihii ay keeneen inay magaalada u soo qaxaan u soo daaduunto magaaladii markay timid iskoris bay noqotay iyadoo gabadh ah cid gacan qabata way weyday nolol dhib laho duruuf xun xilligii gumaysi on xorriyaddiiba la qaadan noloshaa dhibka badan bay kusoo jirtay xorriyaddii bay usoo joogtay way ku halgankii gobonnimadoonka markii la joogay wixii ay heli karaysay way u hurtay xorriyaddii bay ku faraxday xorriyaddii markay timid daryeel dadweynihii iyo bulshadii mid iyo dowladdii toona daryeel kama helin way ku hungowday dhibaato badan bay la sii kulantay nolosheedu way sii xumaatay 69kii dowladdii kacaanka militariga dhalatay way ku faraxday haddana markay sii joogtay haddana iyadana way ku hungowday nolosheedii waxay ka soo gaadhay markaa dulmi iyo dayacnaan xoog leh ayaa waxay mar walba kala kulmaysaa bulshada ku hareersan iyo maamulka labadaba maamulku waa dayacaad waxaa laga yaabaa inaan dulmi gaara iyada loo geysan waxaa ku soo jirta haddana dhibaatadaasi dhaawac ay u geysatay waxay ku keentay bulshadii inay nacdo waxay go-aan ku gaadhay inay bulshada ka aargudato markaasaa waxay shaqo ka dhigatay fataalidda inay dumarka iyo ragga isu geyso ragga inay u geyso gabdhaha dhalinyarada ah inay u iibgeyso markaasay u furatay guri dhan marka fataalidda ay ka shaqaynayso waxa weeyaan waa hub u adeegsanayso aargudasho ay ka aargudanayso bulshada marka
koritaankeedii bulshada ka sastay Ha. markaasaa magaca baydan saasuu ku tusaya Ha. shabeel ma naanays baa mise waa aabaheed ma garanayo Naanays ay u egtahay. inay marka shabeel waxaad halkaa kuma waa sidii riwaayaddii shabeel naagood oo Ha, ha. kale oo marka dadka kale riwaayadda ku jira qisadan ku jira waxaa ka mid ah Faadumo Yari Ha. waa gabadh yar reer afgooye ahayd qoyskoodii muxuu u baaba'ay dhowr caruur ay walaalo yihiin waxay u soo carareen magaalada Muqdisho iyada oo ay gabadh yar Ah. ayaa hambada ay reerka u shaqeysa ay ka soo qaato Ayay ku ku korisaa way dhiban tahay mustaqbalkeeda cid ka fikiraysa ma jirto Waxbarasho ma laha. mustaqbalkeedu wuu dhib badan yahay waxbarasho male hadda iyadu waxbarasho doonato caruurtan yar yar Yar- kale yaa cid xanaaneynayo. beelaysa male marka waxay tusaale u tahay caruur badan oo kaleeto oo dayacnayd ayuu tahay dabcan xubno kalena way ku jiraan sida Xaaji Muumin iyo Sahre Yuusuf iyo Axmed Jaamac iyo Ah. laakiin dhowrkan qof Kulmiye. waxay noogu jilayaasha Ah, ugu waaweyn. ayay ka mid yihiin waan gartay